muxuu ahay si balaaran loo abaabulo oo arrimahan noocan oo kale ay ka qayb galaan arrintaas way bilaabeen way ku mahadsan yihiin laakiin waxaan is leenahay markaad eegto abaabulada qurbajoogteena qaar ka midii ay ku bixiyaan waxyaalaha aan bulshada faa'iido u lahayn way yar tahay weli sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqayaa qurbajoogtu inay si weyn uga qayb qaataan hawlahan oo kaalinta ay hadda muujiyeen mid ka ballaaran ay qaataan intii isbeddelku dhacay xiriirka qurbajoogta iyo dowladda deegaanku waxoogaa isbeddelaa ku yimid sidaad la socotaan deegaanka siyaasadihii ka jiray waxay keeneen in siyaasaddii ay dhoofto oo waddan ka cararto dadka keliya maaha wixii dhoofay siyaasaddaa dhooftay taas waxay keentay in taageerada cidda u baahan ay taageerada ka raadiso qurbaha kolka halkan dadka jooga ee madaxdii maadaama halkan aan laga mucaaridi karaynin maadaama halkan aan lagu soo halqaadi karaynin haddii wax xun ay biyaan meesha lagu soo halqaaday ay meel kale tahay meesha lagaga soo halqaadayo inaan lagu soo halqaadin lacag badan baa lagu bixin jiray dadaal badan baa lagu bixin jiray kuwa halkan jooga astura dhibaatooyinkooduna iyaguna waxay fili jireen halkan markay yimaadaan wixii loo bedelo ayay fili jireen tii waxay keentay markaa xiriir aan caafimaad qabin oo ah anna xaggaasaan kaa difaacay adna xaggan wixii aad haysaad iga siin xiriirkii noocaas ahaa isbeddelkii kadib meesha buu ka baxay laakiin hadda waxaan rabnaa inaan annagu laftiganu dib u bilowno xiriir wanaagsan oo qurbajoogtu waa xoog macnale oo ballaaran arrinta ku saabsan qurbajoogta xiriir caafimaad qaba oo dadka faa'iido u leh oo isla xisaabtan ku salaysan inuu bilowdaan rabnaa xiriirkaas wuxuu noqonayaa cid allaala ciddii rabta afkaar siyaasadeed inay sheegto xor bay u tahay sidii hore loo sheegay cid xukuumadahoo cid qurbajooga ugu dudaysa soo dhoweyn sooriyo iyo taageer siyaasadeed ma jirto waxaa qurbajoogta loogu tegayaa in loo bandhigo wixii xaqiiqooyin ahaa ee aragtida dowladda ahaa ee meelahan ka jira in loo geeyo wixii ay iyagu ku dari karaan maadaama aqoon badan iyo aqli badan iyo dhaqaalo badan xaggaa uu yaallo wixii ay ku dari karaan iyo wixii toosina inay sameeyaan wixii khaladaad ay jiray arkaan annagaa noo muuqan in la kala xaajo qaato oo ay fursad helaan ay wixii qalbiga ku jira ay ku sheegtaan iyaguna waxyaalaha noocaasi dowladduna xaggan ay ka abaabusho qorshayaal lagu caawinayo investmentiya ama maalgashi dhaba oo matalan ba dadka dibadda ka imanaya waxna way wataan waxna way u baahan yihiin waxa ay u baahan yihiin in laga taageero si cilmiyeysan oo ku xidhnayn taageero siyaasadeed ay bixiyeen iyo aragtidooda ee ku xidhan tayada barnaamijyada iyo maskaxda ay ku soo celiyeen deegaanka iyadoo la eegayo in barnaamijyo lagu caawiyo la sameeyo ceelalka haddii la qodayo iyagoo beer ka shaqeynaya ceelal loo qodayo wadooyin muxuu ahaa haddii wadooyinkan muxuu ahaa ganacsiga kale ee badan furan ay meel ka soo gelayaan potentialka iyo fikirka ay wataan qiimihi uu leeyahay inta la eego in lagu soo dhaweeyo xitaa hadduu yahay qof dowladda aan jeclayn hadduu yahay qof dowladda taageersan oo aan waxba qabanaynin uu ku helin dowladda taageersanay marka si fundamental ama asaasiya ayuu isu bedelayaa xiriir ka dhaxeeya qurbajoogta iyo deegaanka waxaan laakiin ka codsanaynaa in dhawaanahan 5 sano u dambeysay hadda iskala guurka aan ku jirnay dal ahaan iyo deegaan ahaanba oo goldololooyin fara badan oo amni kuwa maamul kuwa maaragtay duruufaha dhaqaalaha dalka ay jireen dhaqanadii jiray in hadda aan la aqbalayn oo isbedelayaan sidaa daraaddeed qurbajoogtu waxaa saaran mas-uuliyad ah inay ka qayb qaataan horumarka laakiin haddii amniga ay noqoto in khalkhal ay geliyaan oo baraaga ay qodaan oo ceelo soo fangareeyaan oo dadka iska hor keenaan dee way dhib badnaanaysaa in gacan ku dhiigla meelahan jooga oo gaajaysan oo lacag loo soo diray oo liyi halkaa qod aan sariyana uun way dhib badnaanaysaa waxay noqonaysaa in maaragtay shuruucdu ay qabtaan cid walba oo saa u shaqaynaysa xafiiska nabadgelyaduna ciddii kacdoon muxuu ahaa siyaasadeed ka shaqaynaysa waa gaar siyaasad baa la joogaa hana mucaaridina ma lihin kacdo hanagu abina lama odhanayo dejinteeda iyo maareynteeda waa mas-uuliyad annagana saaran iyo xirfadeeda aan la nimaadno wixii waxaa lagu maarayn lahaa laakiin masaakiinta miyiga joogta inay siyaasad la dhexgeliyo oo ceelal isku laayaan oo wax isku laayaan taa in laga baxo baan rabnaa qofka xukuumadda ku xumeynaya wuxuu doon ha sameeyo laakiin qofka laba beelood oo masaakiin meel joogta inay isdilaan soo waxaynaya inaan si kuligeen damir ahaan ka hor nimaadno oo waxaas waa khalad aan nidhaa
ayaa loo baahan yahay sida guuxa maalmahan taagna iyo buuqan taagan tuulo yar oo aan warada ahayn degmo xitaa aan gaarsiisanayn in maanta ay noqoto waxyaalaha ka dhacaya qaarkood hawada waxa la isu laalin international news dagaalka Ukraine aad moodo kala inay noqoto wax ceeb weeyaan marka odayaal siyaasiyiin ururo halkan ay joogaan siyaasadii way soo noqotay imported bay noqotay hadda gudaha joogta marka gudaha wixii ka jira halkan ku filan wixii kale dibadda yaalana wixii cid ku daraysa ku darto laakiin buunka colaadaha ilaa afuufa iyo shacabka dhexdiisa laga baxo waxyaalahan caawa halkan aan isugu nimid ee muhiimka ah tabaruca masaakiinta noocan dhibaatada ku dhacday waxyaalaha la ku saabsan caafimaadka bulshada iyo horumarka bulshada xoogga hala saaro waxaan bogaadinayaa qurba joogta ilaa iyo hadda arrimaha noocaas si fiican uga shaqeeyay waxaan aad u amaanayaa qurba joogta inta hadda aan arkay afdheer gabdho ka yimid baa jiray oo dadaalaya wax dhisay dugsiyo dhisay waxay soo maray oo kale iyaguna oo xukuumad ahaan annana aanu taageernay afdheer qabri dahar oo maalinkii dhawaatada arkayseen international school ay hore ay u sameeyeen haddana si caalami ka sii dhigaya oo jiil cusub oo wanaagsan oo akhlaaq la abuuraya dhagax buur intaan ka ogahay kuwa kalena waan ogeyn baa laga yaabaa laakiin hadda kadib waan qori doonaa tartansiin qurba joogta iyo xad qabsateen waan muujin doonaa haddii la caasimadana si gaar ah qorsheyn lagu qaato iyo u baahnaan doontaa tabarucana insha Allah in la caawiyo oo